bismillaahi raxmaani raxiim dhammaantiin sidaynu ka wada warqabno waxa uu caalamku maanta dagaal adag kula jiraa xanuunka loo caalwaayey ee covid-19 kadib markii la arkay qiimayna lagu sameeyey xogaha iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee xanuunka safarka ee covid-19 ee haleelay dunida sida ku cad talooyinka ka soo yeedhaya khubarada caafimaadka iyo guddiyada ka hortagga xanuunka covid-19 ayaa waxaa ka mid a uguna muhiimsan in dadku ay kala fogaadaan sidoo kalena guryahooda ay joogaan taasoo noqotay tallaabada ugu wanaagsan ee lagaga hortegi karo laguna dagaalami karo fayraskan haddaba sida la og yahay laguna warqabo waxaa foodda inoogu soo haysa bisha barakaysan ee rabadaan ilaahay caafimaad qab ha nagu wada gaadhsiiye bishaasi oo sheekh cabdikariin xasan xoosh uu dhigi jiray rabadaan walba tafsiirka qur-aanka kariimka jis ka mid ah maadaama aanay suurtagal ahayn in meel laga wada yimaado ama masjidka lasoo wada fadhiisto xanuunkan awgii baahida bulshaduna ay laga maarmaan noqotay inaannu baaqanin dhigitaanka tafsiirka sannadkan waxa uu go'aansaday sheekhu in sannadkan tafsiirka jiska 7 laga dhigi doono hab onlayna oo haddii ilaahay ka dhigo dhammaanteenna si toos ahna lagala wada socon doono beejka sheekha ee facebookga iyo janalka youtubeka ee sheekha u gaarka ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in xanuunkan iyo aafooyinkaba ina baalmariyo وبالله توفيق